Sheekh Ali Ibrahim Baghdadi oo ah wadaad xog badan ka haya aas-aasayaashii SYL waxaa si gaar ah uga hadlaya Cabduqaadir Sheekh Saqaawudiin oo ka mid ah aas-aasayaashii ururka SYL. hase ahaatee waxaa inaan wax yar ka sheega rabaa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Sakhaawo Sheekh Uways. Sheekh Cabdulqaadir waxaa dhalay Sheekh Sakhaawo Sheekh Uways baa dhalay oo Sheekh Uways dheere wiilkiisa dhalay Sheekh Uways dheere oo diinta ku faafiyay Afrika oo afarteeda gees ilaa Masar diinta gaarsiiyay yacni ka soo takharujay jaamacaddii ku taalay Baghdad تعليم التربية الرياض الروحية أجسوا تخرجي وملك الدين تجارسي أي دلي مركا شيخ عبد القادر شيخ سخاوي شيخ أويس دير أي رؤية وإماضي يعني إن يعني أساسه دولة نمو شأن جيد إنه أساسه أي شيخ أمر كسيي شيخ واعب صوضي هبين لبعض أمر لجوسي هبين كل لبعض أنا واعب صوضي هبين كي سدحات بالليري إنه إنجليز كدل أنسو كمان بقيسد أنا كدلين آخرنا عذاب بتجلس هذا أرنتان فلين شيخ واصوب حي مقدشو إماضي مالنتاس بقول يلا باتن رجي طريقة ذا كمد أهابو هبين كي شريي إن يعني بريتو loo tago ingiriiska oo la weydiisto makaan tacliimeed iskool in la furto la weydiisto ballan baa lagu kala tagay 12 wiil baa u imaatay oo dhalinyaro ee ragii kala way baqeen uma imaanin iyadoo asaga 13 uu ku yahay madaxnu u yahay ingiriiski loo tagay adiga arrimuhu way badnaayeen laakiin ingiriiski waa ogolaaday waa saaciday meel buu u furay ilaa uu ka gaarsiyo heer dhulka hadda shanta Soomaali la yiraahdo uu ka furo markii dambe SYL uu ka furo magacyo badan oo kala duwan bay soo martay iyo soo maray ururka ilaa uu SYL ka furo Soomaali oo dhan ilaa Djibouti iyo Ethiopia iyo dhulka hadda lixda NFD la yiraahdo dhulkaas oo dhan laga furo marka hadda sheekha asagoo hawl aad cajiib u leh qabtay meel fiican ay u marayso ayaa ilaah oofsaday waa uu dhintay yacni doorashada Talyaani la doortay ragii asaga ka dambeeyay baa yeelay xataa waa uu ka dardaarmay maxaa yeelay maalintaas haddii dardaarankiisa la raaci lahaa Soomaali oo dhan hal maalin bay dawladnimada qaadan lahayd alxamdulillaahi rabbil caalamiin haddii maanta barwaaqada maanta aan ku sugannahay asaga ayaa u sabab noqday aadan cabdilla cusmaan markii uu dawladda qabtay dawladdii daakhiliga laga soo baxay uu qabtay meeshii uu ku xabaalnaa waxay ahayd meeshaan hadda sayidka loo yaqaano taalada sayidka laga dhigay markii wax yar hoos looga dego ayay ahayd laamiga gacantiisa bidixda ah ayuu ku xabaalnaa wuxuu ka dhisay aadan cabdilla cusmaan hal boos dhulka markaas booskiisa 12 mitir oo isku weer camal buu ahaa hal boos oo wareeg oo derbi 2 mitir uu ku wareejiyay oo uu nidaamiyo yacni madaxda ku soo ziyaarato culimadana ku soo ziyaarato haddee reer Sheekh Uways buu ahaayo culimada way ziyaaran jirtay ziyaartiisa lama kala goon jirin khilaawa lagu geli jiray madaxda dawladana way ziyaaran jirtay xataa carabta iyo wixii islaam ah dibadda laga keeno waa la geen jiray qabrigiisa la geen jiray taariikhdiisa looga sheekeen jiray boosna wuxuu ka dhisay guryo ayuu ka dhisay oo wuxuu ka dhigay meesha yacni ragga khilaaweynaya ay seexdaan ama markii alla bari la qababa yacni la fariisto ayuu ka dhisay labadaas boos uu Sayd Maxamed Cabdilla Xasan u dhisay u dhisay aadan cabdilla cusmaan
haddee waad og tihiin maxamed siyaad barrana taallada u dhisay waad og tihiin yacni wuxuu ahaa anigu waxaan ka aqaanaa raggii sideeda ahaan culimo ahaan ayaa waxaan ka aqaanaa sheekh cabdulqaadir sheekh sakhaawe sheekh uways gabdhihii soomaaliyeed waxay yidhaahdeen saacad dahablow adoogaa sakhaawadiin biyaha zemzam iyo jannadaa saami looga dhigay marka sheekha as'aasaha dowladdan sharafta leh as'aasay saasuu ahaa sheekh cabdulqaadir sheekh sakhaawe anigu horta ree magaal ma ihi ninkan suufiga oo inta iska fadhiyo wadaadka baan ahay haddee SYL dib baa laga yidhi magacyo kalaa loo bixiyey dhowr meelood ayaa loo kireeyey intii iyada saldhig looga dhiso dhowr meelood baa loo kireeyey laakiin waxay gaartay oo laga wada furayba soomaali shanta soomaaliyeed si way ku noqdeen seemadaanada waa tay yidhaahdeen oo shanta soomaaliyeedba waa laga furay meel alla meeshay ahayd rag baa ka shaqeeyey oo aad u sharaf badnaa oo dhallinyaro oo aad u sharaf badnaayo dalka yacni magacyahooda anugu hadda ma tirin kare as'aaska markuu ahaa dhallinyaruu ahaa wuxuuba dhintayba 45 buuba dhintay asaga 5 sano unbuuba waday ilaahiisa oofsaday markaas ayuuba dhintay dadna hal wiil buuba dhaafay wiilkii hadda waa wiil curyaan gacan waa ka go'an yahay lugna waa ka jaban yahay indhahana haddaa loo fiiqay halkaas wiil buuba dadba ka tegey nin dhallinyaro buu ahaa marka iyada nin weyn oo oday ma ahayn qoyskiisii horta ninkaas carruurna waa dhalay ninkaasaa ka nool oo hadda curyaan oo masaakiin baa ka nool xaruntii saldhiggiisa ahaydna muddadii gaabnayd muddadii dheereed gaabneed yaanan dhihine oo maxamed siyaad barre ka dambaysay muddadii maxamed siyaad barre ka dambaysay hadde marna taliya kooxeedyaana haystay marna maxkamadaa la dhihi jiray marna al-shabaab baa la dhihi jiray sheekhii qabrigiisii waa la baabi'iyey rag baa guryo ka dhistay labadii boosba waa la baabi'iyo rag baa guryo ka dhistay sheekhan uu dhalayna wuxuu u cararay sacuudi markii dhibaatada ay dhacday meeshii dhisan hadduu imaadayna wuxooga haddee waa la handado waaba cabsaday waa iska fadhiyaa maanta waxaan aad ugu rajo weynnahay wakhtigii xumaa guryihii la dhistay oo hadda yacni meel hadda sheekhii lagu ziyaarta aan lahayn qabrigiisiba guri ka dul dhisan yaho sariiru dul fuusho yacni annagu madaxweyneyaalkii maxamed siyaad barre u dambeeyey kadib haddee madaxweyne dalka qabsaday oo maamul yeeshay ma jirina hadda madaxweynahaanan rajaynaynaa ilaahna u baryaynaa annagu hadda dalka shicibkiisa iyo dowladdiisaba aqimkii aadaanka dhexdooda iyo salaada ciribteeda ilaah baan u barinaa in tawfiiq iyo talo wanaagsan uu siiyo waxaan rajaynaynaa maanta masaakiintii guryaha dhisatayna in waxoodii loo celiyo sheekhaas oo taariikhdaas saas leh xagga diiniyada reer sheekh uways xagga kale as'aasihii yacni dowladnimada soomaaliyeed inshaare iyo duca iyo talo iyo barbaarin iyo barwaaqaba ku soo waxeeyey in yacni mawliciisii loo soo celiyo oo loo wanaajiyo taas waxaan ka rajaynaynaa uguna ducaynaynaa madaxweynaha dalka ayaan ka rajaynaynaa uguna ducaynaynaa masaakiintan wakhtiga oo isku jajabay oo la derderay meesha guryaha ka dhisatayna inaan la dhibin oo waxooda loo celiyo oo xaruntii sheekhana labadii boos sidoodii laga soo dhigo waxaan ka codsanaynaa oo aan ka rajaynaynaa inaan ka helno yacni madaxweynaha dalka soomaaliyeed madaxweyne maxamed cabdulaahi rajaanna ka qabnaa waanna u ducaynaa habeen iyo maalin ninkii dalka soomaali dib u soo noolayn lahaa oo dalka soomaali dib u soo noolayn lahaa inuu ilaahay ka dhigo ayaan ilaah ka baryaynaa waxa uu qabtana waxa ugu horreeyo saldhiggaas aas-aasaha yacni hadda 15
loo bannaan baxay sha'nigiisa aadan cabdille cusmaan uu meeshii dhisay maxamed siyaad barrana taalladaad ogtihiin buu u sameeyey maanta inuu qabrigiisa iyo guryihiisa soo celiyo ayaan ka rajaynaynaa ilaahna waan u baryaynaa dalka in amni ilaahay siiyo oo amarkiisa uu socdo oo dawladdiisa tawfiiq alla waafajiyo ayaan ilaahay aga baryaynaa waana ag helaynaa waana aga helnay wassalaamu calaykum waraxmatullahi